بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan subax wanaagsan. maanta waxay ka mid tahay maalmaha taariikhda ummadda Soomaaliyeed ku weyn. waa maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 12 bisha Abriil 63 sano ka hor maanta oo kale ayaa waxaa la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah. sidaas daraadeed anoo ka faa'iideysanay fursadan waxaan rabaa inaan u diro ambaryo iyo bogaadin dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, saraakiisha, saraakiil xigeenta, dableyda iyo jadiidka intaba dhammaan waxaan leeyahay maalin wanaagsan, ciid wanaagsan, sanad guuro wanaagsan. sanadkan sanad guurada waxay ku soo aaday waqti aad iyo aad muhiim u ah. sanadihii la soo dhaafay sanad guurada waxaan ku xusi jirnay dabaaldegyo iyo muxuu ahaay bandhig ciidan iyo qalab iyo wax lamid ayaa lagu xusi jiray. sanadkan sanad guurada 63aad ee aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa lagu xusayaa dagaal xoreynta dalka, soo celinta karaamada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed. sidaas daraadeed geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qoysaskoodaba waxaan leeyahay hambalyo. shaqada aad maanta ku jirtaan waa taariikh kale oo samaysmayso. haddii 63 sano ka hor ay ku caanbaxday maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bisha Abriil 12keeda, sanadkan iyo maalmo badan oo soo socda iyo maalmo la soo dhaafay intaba waxay ayagana ku astaysanaan doonaan maalintii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ay dalka ka xoreeyeen khawaarijtii, cadowgii ummadan duleeyay, diinteeda haleeyay, dadnimadeeda wax u dhimay, sharaftooda iyo karaamadooda hoos u dhigay. daboolkaas dulinimada ah maalintay ka dulqaadeen dadka Soomaaliyeed oo ay u dhaarteen awalba waay waa maalintii geesiyaashaasi dhaartooda ay ka dhabeeyeen. sidaas daraadeed waa maalin kale oo ma xuski aasaaska kaliya ah, waa maalin kale ku astaysan sanad guuradii la xusay iyadoo halgan lagu jiro oo aan lagu xusin dabaaldeg iyo gaardis, laakiin lagu xusay dhiigga geesiyaasha iyo shuhadada shahiidaya maalin walba ee u shahiidaya u dhimanaya difaaca diinta, dalka, dadka iyo dowladnimada. sidaas daraadeed waxaan leeyahay hambalyo 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 dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. walaalayaal waxaan leeyahay ayagana aan garab istaagno ciidamadeena qalabka sida guud ahaan, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee furmaha fogfog, duurka, haraadka, qoraxda, rafaadka kale dhammaan u maraya ee ugu dambayntana wax la bixiyo waxa ugu qaalisan oo nafta bini aadamka bixinaya si ay dadkan maanta jooga iyo jiilasha soo socdaba ay ugu noolaadaan cizi iyo karaamo iyo sharaf, si diinteena xaniifka ay kor u ahaato, ay sax u ahaato, oo sidii Ilaahay ugu talagalay in loogu dhaqmo ay dadkeena weligood ugu soo dhaqmi jireen ay ugu dhaqmaan. waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ogaada wiilasha ka tirsan iyo gabdhaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hawsha maanta la jooga ay ku jiraan waa hawshaas. hay-adaas ciidanka qalabka sida ee xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waa hay-ad gaamurtay firaaqa soo galo waqtiyo badan oo dhaxda ah oo xoogaa iska dhibaataha soo dhacaan, laakiin waa hay-ad ciidan oo dib u hana qaaday waajibkeediina maanta si farxad leh ayadoon la lahayn annagaa hor soconnay, annagaa la xoreynay, annagaa kala dhacnay. maanta inay ayagoo keligood ah ay taagan yihiin meelo aada u fogfog, ayagoo ka bilaabay socod iyo lug ka bilaabay meelo aan nagu dhow laakiin maanta sii maraya dalka intiisa badan 70 meelood oo dadka Soomaaliya ay degan yihiin, oo degmo leh, oo beel leh, oo tuulo leh, oo ceel leh, oo wada leh, oo maxaan ku rahaa deegaan leh, dulinimo loogu noolaan jiray maantana xornimo loogu nool yahay ayay lug ku mareen. markaasaa waxa ay joogaan cirifka meeshii ay gabagabayn lahaayeen. guul ayaan idin rajaynaynaa, waa idin garab taagannahay, hiil iyo hooba wixii karaankeenna waxba idinka reeba mayna. dadka Soomaaliyeed ha u diyaar garoobaan inta dhiman inaan sidan oo kale iyo xoogga iyo maxaan ku idhahdaa quwadda aan hayna ay sida naga ahaato, la caajisin, dib loo dhicin, aan lees dhiganin. cadowga weli waa nool yahay, dhulka mida dhulkeennana weli wuu haystaa, weli waa taagannahay, waa soconnaa. xornimad iyo sharaf iyo karaamaan doonnay, mar dhowna waa gaaraynaa ilaahay idankiisa. aad iyo aad aa umahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.